السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قلبك يا قلوبتك حردا أدبان إني سلاني وقت آدو ونكسن نولل فيعن يا عافيمات تاما يعني دين رجينينا كسور دوادا كنال كينا عافيمات كي دكترك عافيمات كقويسك مقالكم وحاينو كويغينا ضبيلها وضب فيروس ككورونا فيروس oo laga soo sheegayo inay dhirbaaxayaan ama ay ka dhacayaan ama si ballaaran ay ugu soo baaheen dalkeena hooyo. Arrintani waxay tilmaamaysaa inuu xaalad aad u culus oo murugadeeda leh oo tilaanyadeeda leh inuu galay dalkeena. Waxa xilligan kale loo baahan yahay dadaallo shakhsiyadeed iyo mid shacab oo laga gudbi karo isku duubnaan iyo iscaawin iyo iskarabgaris ballaaran. arrintani waxay doonaysaa inuu qof kastaaba halkiisa uu halkan ballaaran ka galo af adin iyo gacan waxa uu geysan karaba. xanuunkan adduunka inta badan albaabada u laabeen leeyahay coronavirus ama covid-19 waxa uu dhibaato aad u culus gaarsiiyey malaayiin qof oo dabcan hawl nololeedkeeda maalmood waday ayuu si toos ah uga dul tallaabsaday. ma aha wax sahlan oo runtii aynu ku eegi karno ama aynu isku eegan karno. muuqaalka waxaynu ku soo qaadanaynaa qaabka aynu filayno inaynu profession ahaan aynu samayn karno ee uu holi karo qof kasta oo ka tirsan bulshadeena sagiir iyo kabiirba. dabcan waxa kale aynu uga digaynaa gurubyo ka mid ah dadkeena in aad loo ilaaliyo xilliyada oo il gaara lagu hayo oo in naxariis la lagu eego haddii ay suuragal tahayna laga agdhaweeyo goobaha caafimaadka ama howlwadeennada caafimaadku ay si gaara ula socdaan si dadkaasu inagama go'aan in loo badbaadiyo. badi bulshadeena Soomaaliyeed oo dad aad u sharaf badan waxa lagu eedeeyaa inaynu nahay dad inta badan madax adayg leh. arrintaasi marka la eegayo waa mid keenta dhaqankeena iyo xoolo raacnimadeena iyo dhaqankii soo jireenka ahaa ee awowyaashin. laakiin adduunkan update-ka qofku waxa loo baahan yahay maskaxdiisu inay aad u furnaato inta uu ilaalin karo inuu aad isku ilaaliyo wacyigelinaha iyo inta badan iclaamiyada iyo awareness-ka ka soo baxaya howlwadeennada caafimaadka goobaha caafimaadka dhakhaatiirta inuu dhug weyn u yeesho. qofku waxa ugu qiimaha badan ee uu haystaa waa caafimaadkiisa. haddii uu waayo ama uu ka dhaawacmo waxa ugu yar hal midida haddii qofka hal minute oo noloshaada ka mid ah qofka haddii uu dhaawac iyo dhibaato dareemo waynu dareemaynaa qofku sida uu noqdo sida uu mariidka u ahaado awoodii iyo isla weynaashadii siday meesha uga baxaan ee qofku uu qaadan kari waayo koobiya ama gacantiisa loo rogayo ee uu taagdarnaanayo. dhammaan ibni aadanka waxaa lagu tilmaamaa inaynu dad aad u liitanahay marka la eegayo waxyaabaha jidhkeenu ka samaysan yahay oo runtii waxa ugu weynay jidhkeena dhaqaajiyaa lagu qiyaasaa inay tahay ruuxduna ay tahay wax aad u tamar daran oo meesha ay hoyga ay ku tahay jidhkeena uu yahay meel wax kastaba u nugul. ilaalinta koobaad waa ta ilaahay qofka ilaaliyo loona baahan yahay inuu sidaa ku ictiqaado oo sidaa uu ku ogaado oo ilaahiisa markasta talada u dhiibto u celiyo. haddana xaaladdanba waxay u baahan tahay inaynu fiiro gaara aynu aad ugu yeelano. dhammaan qof kastaaba inuu halkiisa ku noqdo howlwadeen caafimaad dhakhtar nurse iyo inuu ahaado public health practitioner inuu halkiisa ku ahaado. waxyaabaha ugu waaweyn ee dabcan laynagu eedeeyo inaynu nahay dad isjecel oo aad iskugu soo dhowaanaya xanuunkiina uu yahay contagious mid lagu kala qaadayo taabashada hadalka macaamilaadka dadku ay wada sheergaraynayaan waxyaabo kala duwan. arrintaasina waa mid aynu ognahay inay marka bulsho ahaan loo eegayo ay adagtay wax kastaaba inay iskaga keen xidhan yihiin dad isdhexgal og inaynu nahay dad aan aaminsanaynba inaanad qofkan wax ka qaadi karan inaynu nahay. haddana si kastaba ha noqotee in arrinta aad looga digtoonaado oo aad loo kala durko waa muhim. maydhista gacanta ilaalinta wejiga in aad loo ilaaliyaa oo qofku aanu istaataaban gaar ahaan indhaha sanka iyo afka uu gacantiisa ka ilaaliyo waa muhim. gabcahana inuu maydho xilli kasta waa muhim. waxaa kaloo iyagana soo raaca maryaha qudhooda haddaad suuqa la soo marto inta karaankaaga ayna ku og biyaha waddanka iyo qofku inaanu markasta maryaha maydhi karin ama hawshaas
sida ugu macquulsan inuu meel gooniya saarto maryahaas ama uu isku dayo inuu markaa maydho. arrimahaasi waa arrimaha guud ee inta badan aad maqashaan ee aynu isku soo celcelino ee dhakhaatiirtu ay noo sheegaan ee inta badan adduunka u noqda imika wax markaa standardized ah oo loo laabanayo. haddaba waxaynu maanta muuqaalkeenan aadka u kooban aynu ku soo qaadanayna oo weliba si kooban aynu ugu soo qaadanayna maadaama oo xanuunku uu yahay mid inta badan ku dhacaya qaybta respiratory-ga. waxaad aad loo ilaalin doonaa ama in naxariista lagula socon doonaa guruubada dadka soo socda, dadka asmaatiga ee qaba xanuunada, dadka xanuunka inta badan neefta Soomaali ahaan aynu u naqaano ee ku dhaca qaybta saableyda. in aad loo ilaaliyo dadkaas waa mid muhiima, sababtoo ah dadkaasu marka hore ayay neefqabatin leeyihiinba, maadaama haddii uu kani soo weeraray ilaahay naguma keenin wadadu nugul. dadka in aad loo ilaaliyo waa muhiim. dhammaan dadka sidoo kale hawo mareenka ka jiran ama qaba xanuunada loo yaqaano respiratory disease-ka ee uu ka mid yahay bronchitis-ka, ay ka mid yihiin dadka inta badan qaybta hawo mareenka iyo cunaha iyo inta aadka uga jiran in aad loo ilaaliyo iyagana waynu ku talinaynaa oo xaaladooda lala socdo oo waxyaabaha dabiiciga ah ee inta badan aynu soo sheegno iyo waxyaabaha kale ee dhakhaatiirtu ay ugula talinayaanba inaad samaysaan, gaar ahaan waxyaabaha inta badan ka qayb qaata inay nadiifiyaan cunaha, afka, hunguriga iyo inta laabta ee dabiiciga inay aad bulshadu ogaato waa mid aynu kula talinayno. gruubka labaad ee loo baahan yahay in aad loo ilaaliyaa waa dadka la dhiban xanuunada daba dheeraada ee loo yaqaano chronic people. waa dadka qaba xanuunada chroniga sida xanuunada inta badan beer xanuunka, kaliya xanuunka, dhiigarka, xanuunka faaliga, macaanka. xanuunadaana dadka qaba in iyadana si gooniya loo ilaaliyo waa mid aynu aad ugu talinayno xilli kasta iyo waqti kasta. gruubka saddexaad ee la doonayo in il naxariis leh iyo markaas taakulo iyo caawimaad iyo ilaalin gaara la siiyaa waa dadka iyaguna markaa loo yaqaano elder people-ka ama dadka waaweyn. dadka waaweyn ee da-adoodu kontoneeyaha, lixdameeyaha ilaa 90 ay gaadhay in iyagana si gooniyo loola socdo oo laga ag fogaado oo xaaladooda la darso waa mid aynu mar labaad ku adkaynayno oo aynan ka daalin. saddexda gruub ee bulshada ka midka ah in aad loo ilaaliyo ayaynu ku talinayna. aynu nimaadna haddaba waxa muuqaalkeenan ku dhex jirta basal. waxaad isweydiinaysaa ujeedka basasha aynu u soo qaadanaynaa maxay tahay. basashu waxay ka mid tahay waa antimicrobial ama se waxa ay ka hortagtaa sidoo kale microbiaska ama microorganismka ama jeermiska sida viruska iyo bakteeriyada. salaajigeedu waxay aad u faa'iido badan tahay marka aan la karin ama ayaan bislaanin ama aan dab la gelin. waxaynu bulshadeena si ballaaran aynu ugu dhiirigelinaynaa inay sameeyaan in cuntooyinka marka ay cunayaan ay basasha ku gogoostaan. basasha inay dusha kaga jarjaraan oo halkii ay ku karin lahaayeen dusha ay kaga jarjaraan. arrintaasi waxay aad ugu saamaxaysaa difaaca jidhka inay aad uga qayb qaadato, microorganismka inta badan soo weerarayana inay ka difaacdo. calooshana way u fiican tahay oo bakteeriyada inta badan caloosha gasha ama cuntada ha kaa soo raacdo cunto aan nadiif ahayn ama biyo aan nadiif ahayn ha soo raacayo taana way kaa dishaa. sidaa laajigeed basasha inaad cuntada dusha lagaga googoosto waa mid aynu aad ugu dhiirigelinayno. waa very nutritious, faa'iidadeeduna way badantay waxaanay tahay cuntooyinka ama qudaarta ka hortaga microorganismka. taasina waa ta aynu kula talinayna bulshadeena. cuntada marka la soo diyaariyo in lagu dul googoosto waa muhiim. urteeda iyo siifadeeda inaad u adkaysato waa muhiim, waayo waxay kaa difaacaysaa ayaa ka fiican dawada oo qadhaadh ama xanuun badanba. marka aad u adkaysata ayaa waxaa gaadhaa natiijadeeda iyo xalkeeda iyo ku-bogsashaheeda ama markaa faa'iidadeeda. intaas waa ilaamka koodee dabcan aynu isku sheegayno. marka ugu dambeeya tala saarashada ilaahay in la isku duceeyo oo qof muslina oo qaanid ah oo taayibinaya inuu noo afka ka xidhan inaynu aad iskugu ducayno maadaama bishii barakaysan leeyahay oo ilaahay loo alla baryo oo xanuunka laga ducaysto inuu ilaahay dabaylaha dhacaya ina dhaafiyo. khasaaraha uu wadankeena gaarsiiyay ee mararka qaar tiradu ay aad u soo kordhaysana ilaahay gunta inaga joojiyo oo ayna dhaafaan, dadkuna inooga caafimaadaan. intii ku dhimatayna jannatul firdaws alla keeya ayaynu ka baryayna. intaas ayaynu ku soo ururinaynaa la sii wadaaga oo si sheergareeya bulshada aanu jecel nahay inay qayb ka noqdaan kanaalkeena fariimaha caafimaadka ay nala wadaagaan.
iyo markasta macluumaadka ku saabsan arrimaha bulshada, kuwa qoyska, iyo guud ahaan marba mawduucyada aynu kaga hadlayno dhinaca qusrawaadka iyo heerbalka iyo guud ahaanba caafimaadka. fi amaan illah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.